boqor jawaab kulul ka bixiya weerar lagu qaaday wiil yar boqorka Urdun Cabdullaahi ayaa mas'uuliyiinta dalkaasi amar ku siiyay inay qaadaan talaabooyin adag oo dhanka sharciga oo ka dhan ah dadkii weerarka ku qaaday wiil 16 sano jir ah. waxaa si xun loo jirdilay wiilka kadib markii koox ay weerar ku soo qaaday xilli talaadadii uu marayay magaalada Zarqa ee dalkaasi. weerarka ayaa ahaa mid argoosi ah kadib markii dad ay qaraawi yihiin wiilka lagu eedeeyay inay geysteen falal dil ah. kooxdan afduubka kula kacay wiilka ayaa waxay ka jareen wiilka labada gacmood halka sidoo kalena ay ka saareen labada indhood. wakaaladda wararka ee dowladda ee Petra ayaa sheegtay in la xiray dadkii lagu tuhunsan yahay inay weerarkaasi geysteen. wiilka wuxuu haatan ku sugan yahay xaalad halis ah waxaana lagu daweynayaa isbitaal ku yaala Urdun. boqorka wuxuu amar ku bixiyay in wiilka loo qaado isbitaalka Boqor Xuseen ee ku yaala magaalada caasimadda ah ee Cumaan si loo daryeelo xaaladiisa caafimaad. shacabka Urdun ayaa si weyn uga carooday muuqaalka ku saabsan dhacdadan oo lagu baahiyay baraha bulshada.